waxaan joognaa tiyaatarka qaranka ummadda Soomaaliyeed oo naftii aragta indhuhuna ku doogsanaya qalbiguna ku farxayo. waxaan leeyahay intii ku tacabtay tacabkii naareed Allah ka hayo. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha fahanto xooggeeda oo la isu geeyo inuu wax tarayo. haddii xoolaha iyo xoogga la isku darana kama sii fiican. waxaan leeyahay baraaruga oo dalka dhisa oo dadka dhisa oo dadka xaggee laga dhisaa maskaxda. in dal la dhiso aan dal la dhisin waa wixii soo ku dhacay way dumaysaa. laakiin madaxda iyo hantiilayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed baan ka codsanayaa in la dhiso maskaxda bulshada, in lagu dhiso cilmi mid oora loogu sheego iyo mid qalin loogu dhigo. tiyaatarkeeni qarankee tixii iyo ciyaaraha muddo laga dhex tuumi jiray tifmay dowladnimadii madaxdii ku tacabtee isxilqaan ku taagee tabtiisii ku celiyow rabbi baanu tuugnay jeer qaranku taagsado taliyaa tegnina. war ma garateen ummadda Soomaaliyeed waa hoy u dhismay, waa hoygii dhaqanka, waa hoygii lagu soo bandhigayay dhaqanka waxa u weyn suugaanta, ciyaaraha, farshaxanka. intaasuba isaga gudihiisa bay ka tirmaan oo ka soo baxaan. waxa ugu weyn luqadda Soomaaliga waa meesha la keeno dhuuxa ereyga Soomaaliga ah. dhulka ereyga waa meesha lagu faafiyo. ummad aan lahayn caalimka oo dhan muslim iyo gaal waxaa laga eegaa tiyaatarka dhaqankooda. waxaan salaamayaa una ducaynayaa madaxdii ku talisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka, shakhsiyaadkii agaasimayaashii labada sano qoraxda u taagnaa dhammaantood. waxaan leeyahay ilaahay tacabkiina ha ka dhigo kii ilaahay tayo u yeelo, adduunkana magac idiin reeba, aakhirana aad ku janno tagtaan. ilaahay waxaan ka baryaa inaad wax wanaagsan mooye wuxuunaydnaan weligiin ka shaqayn. ilaahay ha idin hagaajiyo, annagana hana hagaajiyo. anna waxaan ballan qaadayaa inaan ka ilaaliyo tiyaatarka intaan ku magacownahay waxun maxaa ka mid ah wiil qadaadka ka xiran, gabar qaawan. anigu waxaan u aqaan fan uma aqaane, waxaan u aqaan waxun. fanku waa macallinka bulshadu ku dayato. waxaan ka rabaa tiyaatarka dhaqan, dad qurux badan, si fiican u nidaamsan. wiilka Soomaaliyeed waxaan ka rabaa ama tuur weyn oo simanoo kaygoo kala ah ama tuur yar oo nadiifa oo isleeg, laakiin halkaasaan xiirayaa oo kooka ku shawaya oo raama ka dhigaya wallan tiyaatarka loola soo gelayn. haddeerba ogaada lama soo gelaysaan, kagama heesaysaan inta anigu joogo. waxaan ka rabaa fanku inuu noqdo ka lagu daydo, lagaga daydo quruxda iyo nadaafadda iyo labiska iyo akhlaaqda iyo duuqaadka. aad baa u mahadsantihiin. ilaahay waddada khayr hayna waafajiyo, ilaahay wuxuu wanaag ku jiro hayna waafajiyo, ilaahay Soomaali boggeeda burcad ha isu mariyo, ilaahay inta xun oo aan ka maaranoo naga maaranta ha naga qabto, intaanan ka maarmin allaha noo soo hanuuniyo. waxaan xasuustaa isaga oo 120 fanaan masraxa saaran tahay oo ay tahay xafladii dowladda. waxaan xusuustaa iyadoo madaxweyne yimi kii ugu dambeeyay xaflad loo sameeyaa waa Xusni Mubaarak oo luqadiisa loogu heesayo 100 qof. waxaan xusuustaa iyadoo lagu cayaarayo dhaqankii wala soqo iyo dhaanto iyo jaandheer iyo kabeebey iyo haddii la waa ku roya beerey iyo mogtahay ciyaarihii kala duwanaa. waxaan xusuustaa annagoo ka dhigaynay ruwaadii ifiyo aakhiro taydii qalanjo qaybsan weyde. waxaan wax badan baa xusuustaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay wixii oo ka sii fiican ha loo soo celiyo.
ilaahay hanoo soo celiyo waxaan laysku durayn waxaan laysku duqaynayn waxaan laysku maagayn oo ummadda horumarkeeda in saldhig ilaahay ha uga dhigo